بسم الله الرحمن الرحيم نبض أرضية ملك الصندوق على سعوتان هالكني والصومالي أكاديمي oo runtii waxaan halkii ka sii wadi doonaa maadadeeni science-ka ee dugsiga hoose dhexe maadadaas oo runtii hadda ka hor ku soo qaadanay ama waxa cutubka koowaad aan ku qaadanay casharkii kan ka horeeyay cudurrada inta badan dadka dhexdeeda iskaga gudba iyo siyaabaha ay u gudbaan iyo tusaalooyinka loo soo qaadan karo maxay kala yihiin marka halkan maanta ciwaan waxaynu ku qaadan doonaa loo yaqaan cudurrada galmada la isugu gudbiyo runtii markaynu ka hadlayno galmadana waa runtii inta badan waa xiriirka labka iyo dhadiga ka dhex dhaca keeni kara markaasi qof xanuun qaba inuu ugu gudbin karo qof kale wataan hadda ka hor soo sheegnay cudurrada la isku gudbiyo siyaabaha ku gudbaan waa koow waxa ka ah runtii hawadii oo kale waxa ku jiri kara oo kale cuntadii biyihii iyo sidoo kale cudur tanaynu maanta habkan aynu qaadanayno ah kuwa galmada la isugu gudbiyo cudurrada galmada la isugu gudbiyo inta badan markaad eegto oo waxay ka imanayaan ay ka dhex dhacayaan maxay waa isku taga ama waa xiriirka dhex mara lab iyo dhadig markaasi ayagoo markaasi xanuunka qofka sida uu gudbinayo qofkan kale ama labku ha sida markaasi ama dhadigu ha sida labada uu gudbinayo markaasi cudurrada galmada la isugu gudbiyo waxay ka soo inta badan ka soo galaan jirka xubnaha taranka ama waxa ahaado xubinta taranka ee maxay labka ama xubinta taranka ee dhadiga ahaata labada ka doontaba ahaatee wuxuu ka soo galaa markaasi xubinta taranku ka soo galaya xagga markaad eegto kuwii ka soo galayay hawada oo kale oo sankii afka qofkii ka soo galayaan kuwii cuntada ka soo galaya afka inta ka soo galaan midhcirada u dhaadhacayaan saas oo kale xanuunada inta badan galmada la isugu gudbiyo waxay ka soo galaan jirka xubnaha taranka markaad eegto halkan waxa ku yaala muuqaal ahaan xubnaha taranka ee aadamaha marka xubnaha taranka ee aadamaha markaad eegto waa xubinta taranka ee lab markaasi iyo xubinta taranka ee dhadig kulanka macnihii ama xiriirka dhex mara labadan ayaa wuxuu keenaa inay xanuunadu faafi karaan uu qof qabo inuu sii gudbin karo qof kale markaasi waxa loo bixinaya xanuunada noocaas oo kala ana maxay xanuunada galmada lagu kala qaado markaad eegto saddex cudur ayaa ugu caansan xanuunada galmada lagu kala qaado oo uu number 1 ka yahay xanuunka xabada loo yaqaan ama waraabowga loo yaqaan waa xanuun ay keento nooc kamid ah xanuun sidayaasha jarwisku uu keeno waana xanuun khatar ku ah qofka bilaadanka markuu jirkiisa galo isagoo la calaamado iyo astaamo kala duwan astaamo ka duwan oo heerarka uu maraya oo heerkii hore ka duwan yahay isagoo marmarka qaar lagu sifayn karo inuu keeni karo markaasi dhimasho inuu keeni karo qofka dhimirkiisa ama xanuunkii maskaxda ku dhacay oo inta keeno qofka inuu maxay miyirkiisa ka kaxeeyo waxyaabo badan oo calaamado badan oo hadda runtii wax qaybaheena soo socda aynu ku arki doona casharka markaad eegto waxa kale oo xanuunada caanka kamid ah markaasi jabtida oo iyaduna kamid ah xanuunada lagu kala qaado galmada ama xiriirka lab iyo dhadig dhex mara waxa kale oo kamid ah iriska xanuunka iriska loo yaqaan irisku inta badan oo ah xanuuno runtii muddooyinkii dambe soo caanbaxay oo dadka bilaadanka dhexdooda ku soo caanbaxay oo inta badan xawayaanka dhexdiisa laga helin laakiin aadamaha dhexdiisa laga helo kaasoo qodobka koobaad ee gudbin kara oo noqon karo markaasi galmada xiriirka lab iyo dhadig dhex mari kara markaad eegto intaynan u tagin labada xanuun oo ka horeeya ee markaasi ama jabtida ha abato ama xabada ha aato waraabowga wax loo yaqaano xanuunka yani faahfaahin ka bixin doono waa xanuunka iriska loo yaqaano waxa dhici karta markaad dadka eegto waxay kugu oranayaan HIV iris bay kugu oranayaan HIV marka la sheegayo waa xanuun sida waa wixii keenaya xanuunka waana viruska yar laakiin iris marka la leeyahay waa xanuunka laftiisii markaasi xanuunkan markaad eegto inta badan wuxuu ku dhacaa oo saameyn ku leeyahay ama uu asiibaa jirka ولمن إسقى كعصيبة ونجد الدفاع سو وقصار شركة ونجد الدفاع مركز تو ونجد الدفاع وشركة أي كبحنا واحد بيعتقوا إيمانا يا شركة واي واحد كبح يا دفاعي وشركة إسكالها عدو الدفاع شركة كبحه واحد عيا حنوند دي بدك كجا إيمانا يا إنه نقول هذا وكده من الشركة يصور هذا قلنا كده من حنون زيادة أو دي بدك كجا يمدي بعد شركة ضعيفين يا أو دي ليا مركز كتكتو حنون كيديس كمركز كتكتو مركز دوري بقى كوكو عيا كام بحيو حنون كله تيم بيا كوكو عيا كام بحيو يعني وحنا نقول jirku inuu noqdo maxay jir aan waxba iska difaaci karin marka wuxuu ka laayaa jirka inta xanuugyada maxay unugyada difaac oo dhan marka aad eegto cudurka AIDS-ka waxa loo yaqaan waa cudur cusub oo galmada la isugu qaado marka cusub leeyahay yani wuxuu eegayaa waayadii ugu dambeeyay waa cudur dadka dhexdooda caan ku noqday oo runtii inta badan khatar ah taas oo qofka bini'aadanka yani noloshiisa halis gelin karta dili karta markaas
marka waa cudur cusub oo galmada la isugu gudbiyo waana kan ugu khatarsan saddexda cudur marka saddexdan cudur ee xagga sare ku hayno waa ugu khatarsan yani ugu khatarsan marka la leeyahay daawadiisa ayaan ilaa waqti xaadirkan ayaan runtii adduunyada inteeda badan aynay helin oo runtii la leeyahay maxay daawo looma hayo walow ay dhici karto in lagu siiyo daawooyin la noolaasha oo tacaalida xanuunka keenta laakiin se dawo aad kaga bogsoonaysa ay markaas ayna meeshii jirin marka haddayna meeshii jirin dhibaatooyinka ugu badan ee ka iman kara waxa weeyaan cudurkii inuu yahay markaasi dilaa waana cudurka ugu khatarsan saddexda cudur ee marka tusaalaha halkan aynu ugu soo qaadanay galmada la isugu gudbiyo markaad eegto waa xanuunka ugu khatarsan saddexda cudur maxaa yeelay ilaa hadda looma hayo maxay wax daawo ah oo baabiisa marka xanuunkan waana dhibaatada koowaad ee keenaysa inuu xanuunkani noqdo kan ugu khatarta badan leh markaad eegto xabadda ama waraabowga waxa loo yaqaano yani markaan leeyahay xabadda ama waraabowga markaan leeyahay yacnihi ma aha qofkii waraabowga oo kale markaad eegto qofki wuxuu ka fikiraya ma waraaba xaggii waraabuhu la kacay ma xawayaanka yani mid kamid ah lakiinse ma aha magaca yacnihi loogu magac daray unbaa xagga geynaya lakiinse wuxuu kamid yahay maxay xanuunada khatarta ee galmada lagu kala qaado marka xabadda amaba sfilatada soomaalidu inta badan qaarna waxay u yaqaanaan sfilato qaar xabad bay yidhahan yani waa xanuuno markuu jirka soo gala oo dhinaca galmada ka soo galo ama xubinta uu ka soo galo kadibna dhiigga soo dhex galo muddo markuu qaato marka dambe yimaado maskaxda kadibna qofka ku rida maxay inuu damiirkiisa ama miyirkiisa ka kaxay taasina waxay ku sababtaa qofkaasi markaasi inuu runtii noqdo qof waalan oo kale marka wuxuu leeyahay xabadda amaba sfilatadu waxa ay tahay ama waxa uu yahay cudurkan markaad eegto cudur khatar ah oo qofku kale ugu gudbin karo markaasi markaad eegto xidhiidhka amaba isu taga dhinaca galmada marka xidhiidhkii iyo galmadii dhex maray qofka ayuu kaga soo raaca kadibna wuxuu soo gudbo markaasi qofkii kale caafimaadka qabay ama labku markaasi ha caafimaad qabo ama dhadigu ha caafimaad qabo labadaba waxaana uu saameeyaa markaad eegto dhammaan qaybaha jidhka haddii aan sida ugu dhaqsaha badan aan lala tacaalin ama cudurkan aan la daaweynina waxaa dhacaya markaasi cudurkan inuu qofkii u horseedi karo ugu dambeynta cudurada waalida amaba jirada cudurada yacnihi keeni kara qofka inuu waasho dameerkiisii waayo yani uu noqdo markaasi qof noqonaya inaanu runtii kala garanayn wixii wanaag ahayo wixii maxay xumaanta ahaa marka wuxuu leeyahay waa sida amaba jirada maskaxda ku dhacda wuxuu kale uu keeni karaa xanuuno kale oo siyaada oo loo yaqaano markaasi waxa loo yaqaano yani qaybta labaad buu sii gudbi karaa ama secondaryga wax loo yaqaano marka isagoo sababi kara markaasi xanuuno intaa kasii badan oo qofka xataa ku qasbi kara yani noloshiisa inuu waayo oo dhinto markaasi xanuunada uu keeni karo waxaa kamid ah indho la-aanta oo yani inay qofkii inay indho la-aan ku dhacdo waayo mar walba wuxuu runtii weerarka koobaad ku yahay waa maskaxday marka maskaxda hadduu qofkii kaga dhaco mirdho waxaa dhici karta inuu indhihiina ku dhaco kadibna neerfihii indhuhu ay dhintaan oo markaa qof indho la-aan ku dhacdo waxaa dhici kara wadna xanuun buu keeni karaa oo qofkii wadnaha xanuun yani wuxuu keeni karaa xubintii jirka ugu muhiimsanayd ee wareega dhiigga sameynaysa ee jirka kala waday ee oxygeenta iyo waxyaabaas inuu keeno markaa qofkii uu daciifo oo awoodiisa uu gabo waxaa kaloo ku keeni karaa markaasi xitaa dhimasho sababi kara dhimasho kale qofkii inuu yacnihi sandale u dhinto oo uu dhaqsadiiba ka yani noloshiisii waayo waa dhici karta oo xanuunka uu sababi karaa marka waa secondary effect wax la yidhaha ama saameynta labaad laakiin saameyntii koobaad wuxuu noqonayaa xanuunkan inuu jirka galo kadibna uu keeni karo xanuunada ay waalidu kamid tahay markaas noolaha keena markaan noolo leeyahay yani noolaha keena markaan leeyahay noolaha waxaan uga jeedaa macnaha jeermiska yar ee keeni kara muxuu yahay bacteria mise waa virus inta halkan ku taala xanuunkan waxaa keena waa bacteria sababta waxaana loo yaqaanaa sida magaca ka muuqata Treponema palladium baa la yidhaha Treponema palladium marka waa bacteriyada sababi karta in xanuunkan yacnihi iyadaas xanuun sidaha ah jirka soo galaysa kadibna kusii dhiinaysa dheecamada xanuunkan sidana jirkuna uu saaqo kadibna ay marka dambe iyadu lafteedu ay kamid tahay waxyaabihii maskaxda imanayay qofka markaasi xanuunka ku keenaya waraabowga ayaa sida la isla sidaasi la mid ah ku fida markaad eegta galmada yani sidii aidiska oo kale waa xanuun ku fida galmada waxaana fidiyeenta badan bacteria la yidhaahdo marka Treponema palladium loo yaqaano oo ah nooca spirotada bacteriyada noocan ay waa sida furdhuuban oo marmaraaro leh yani wuxuu ujeedaa bacteriyada haddii la doonayo keenta xanuunkan in la sifeeyo macnihi sifahaynu ka bixin karnaa waxa weeyaan waa sidii waxay yani waxa weeyaan dhululuba oo kale dhuuban oo kale laakiin aad moodo inay mardhac leedahay bacteriyada sida sawirkan inooga muuqata markaad sawirkan eegto halkan waxaa ku yaala waa bacteriyadaasina nooc wax kale maaha bacteria kale maaha waa Treponema palladiumta bacteriyada loo yaqaano ee keenaysa markaasi sfilatada ama waxa loo yaqaano xanuunkan
markaasi markaad eegto halkan waxa ku taala inay sidii dhululbad oo kale u samaysan tahay maxay dhuuban tahay laakiinse waxay leedahay mardhac yani marka la sii dhiganayo cilmiga dhakhtarnimada ama science-ka lagu sii talax tagay waxay kamid tahay mardhacaasi inay kamid yihiin waxyaabaha gidaarka jirka ku qabsanaysa mardhow haday smooth ama basbibi haday ahaan lahayd waxa dhici lahayd meel walba ay ka siibanaysaa laakiin mardhacaasi waxay u sababaysaa inay maxay wax qabsato sidoo kale waxay u sababaysaa inay maxay wixii cunto ay doonayso inay maxay inay ku dhagi karto markaasi waxay kamid tahay markaasi bacteriadaasi waxyaabaha xanuunada keena gaar ahaan xanuunka loo yaqaano maxay sifilatada markaad eegto calaamadaha iyo astaamaha cudurkani calaamadaha uu leeyahay amaba astaamaha uu leeyahay maxaa kamid ah muxuu noqon markaan idin leeyahay calaamad ama astaan wax kale maaha qofka markuu ku dhaco xanuunku maxaa ka soo ifbixi kara haddaad aragto markaasi qof ay xanuunkan uu ku dhacay calaamado nooceeya buu yeelan karaa si aad go-aan uga gaadho oo tiraahdo qofkan xanuunka noocaasa haya markaasi markaad dhigato waxaad ogaanaysaa qofkii inaad tiraahdo calaamado noocaasa markaad jirkiisa ku aragto amaba ku arag xubinta taranka qofkiiba yaan odhan xataa even haddii qofkii uu isagu isku arko inuu seego uu yidhahdo calaamadaha noocaas haddaad isku aragto xanuunkaasi markaad dawadiisii inaad isla gaadho markiiba qofki marka calaamad ama astaan waxaan uga jeedaa wixii dibadda uga soo baxa qofka markuu xanuunku ku dhaco markaad eegta calaamadaha ugu horeysa waa xanuunka sida bogo calooleedka oo kale taas oo kasoo baxda meelaha xubnaha taranka iyo xubnaha taranka ragga iyo dumarka markaad eegto bogo calooleed wuxuu uga jeedaa macnihii waxa dhici karta sidii qofku wuxuu noqon karaa inay meeshii fin yaro gubtay oo kale oo markaasi yani inay biyo ku jiraan oo kale moodo biyo ku jiraan marka kadibna finankaasa kasoo baxaya qofka xubintiisii ama dhadig ha ahaado marka ama lab ha ahaado markaasi waxaad garan kartaa xanuunka haya inuu xanuunkan yahay marka calaamada koobaad ay noqon karto calaamada labaad markaad eegto xagga dumarka oo kale haddaynu gaar ahaan xaggii dumarka oo kale u kacno waxay astaamahani ka muuqdaan gudaha xubinta taranka xagga dumarka oo kale markaad eegta ayaga laftooda calaamadahan waxaa laga arki karaa gudaha xubinta taranka markaad eegto walow raggii iyaga laftooda laga arki kara dibadii laakiinse iyaga waxaa laga arki karaa waa maxay waa gudaha markaasi waxaa laga arki karaa xubinta taranka iyadoo oon haweeneyda ogeyn yani haweeneyda iyadoon dareemi karin because of xanuunkani marka ugu horeysaba ma laha bayn ama xanuun kaar ma laha ama xanuun ku dhibaya ma laha markaasi qofkii dumarka iyadoon ogeyn baa laga yaabaa haddana xanuunka calaamadihiisi inay ku jirto maxay dahay xubinta taranka gudaheeda inay ku jiraan macnihi ay kasoo ifbaxeen sida caadiga ah markaad eegto nabarka markaad eegto wax xanuuna ah ma laha yani nabarkan yani kasoo baxay xubinta gudaheeda wax xanuuna uu sameynaya ma jiro waana asbaabta waxa uu nabarkani kusoo baxaa muddo ilaa 9 cisho kadib la kulanka qofka buka yani markaad eegto waxa loo yaqaan incubation period ka wax loo yaqaan ama qofku inteebu xanuunkan uu jirkiisa ku jiri karaa oo dibadda u iman karaa oo soo ifbixi karaa markaad eegto waxa lagu qiyaasi karaa ilaa 9 cisho ilaa 3 bilood oo marka 9 cisho u dhiganta markaas intaas oo qofka dhici karta inuu kaga soo ifbaxo oo ku arki karta markaas calaamadaha 9 way dhici karta in ka badan oo ilaa 9 cisho ay ugu sareysana way iman kartaa inuu calaamadeyn ay ku yimaadaan markaas markuu kadib kulankii qofka uu la yeeshay buka qofka caafimaadka qaba markaad eegto waxyaabaha astaamaha kamid waxaa kamid ah astaamaha cudurkani markaad eegto waxa ay ka kooban yihiin 3 heer yani ka kooban yihiin maaha wuxuu maraa martabada 3 heer buu maraa markaas 3 heer heerka koobaad heerka labaad iyo heerka saddexaad inagoo si faahfaahsan ugu arki doona markaad eegto heerka koobaad xanuunkan markaad eegto heerka koobaad heerkiisa koobaad waa 2 ilaa 3 toddobaad galmada kadib wuxuu soo ifbixi karaa oo dibadda iman karaa heerkiisa koobaad waatan marka hore nidhi 9 ilaa 9 cisho inta u dhaxaysa markaad eegto heerkiisa koobaad waxa dhici karta inuu ku soo ifbaxo 2 ilaa 3 toddobaad kadib galmada markii yani dhibtu galmadu ay dhacday 2 toddobaad ilaa 3 toddobaad kadib baa la arki karaa calaamadihiisu inay yimaadaan dibadda markaad eegto waa fursada uu xubinta taranka korkeeda ku sameysmayo markaasi nabarka aan xanuunka lahayn xubinta taranka markaad eegto xagga raggi oo kale wuxuu ku sameysmaya dibadeeda isagoo nabarkaasi wax xanuuna lahayn 2 ilaa 3 toddobaad buu ku sameysmaya marka isagoo wax xanuuna sameynaynin ood arkaysa laakiin calaamadii iyo nabarkii oo markaasi caabuqii ku yaala xubinta dusheeda dumarkii oo kale markaad eegto gudihii buu ku sameysmaya isagoo xanuun lahayn laakiin se keenaya markaasi caabuqii weli uu jirkii gudihii uu ka muuqdo nabarka waa uu iska baabaa markaad eegto isaga iyadoo aan daaweyn cudur kadib ayaa soo shacbaxa heerka markaad eegto nabarkan waxa dhici karta isagoo aan xanuuna kugu hayn waxbana kugu hayn buu baabaa oo uu ka baxa meesha iyadoo xataa dawo la siin qofkii ayuu baabaa oo meesha ka baxa
isagoo marka aad garan karto inuu nabarkani u gudbay qofkii aan garanayn wuxuu soo oranayaa dacni waad ka bogsatay xanuunkii waxaana wuxuu iska ahaa waxyaabo aan saa usii weyneyn waayo xanuunna muu lahayn waxbana muu lahayn laakiin marka waxaad qofkii garanaya xanuunkan kasoo ifbaxay wuxuu yahay wuxuu u gudbinayaa oo markaasi sheegayaa in qofku iska gartay inuu u gudbay heerkii labaad marka waa inaad dawooyinka xilligaa isticmaasho si aanay kugu sii gudbin maxay heerka labaad inuu gudbin marka wuxuu leeyahay cudurkani kadib ayuu soo shaacbaxa heerka labaad markaasi heerka labaad markaad eegto wuxuu kusoo ifbixi karaa 4 ilaa 6 toddobaad jirada koobaad kadib yani markaad xanuunsatay xanuunkii hore aad calaamadihii isku aragtay kadib 4 ilaa 6 toddobaad baa dhici karta haddana inuu yimaado maxay heerkiisii labaad calaamadaha uu leeyahay iyo khatarta uu leeyahay maxaa kamid ah markaad eegto waxa guud ahaanba qofka ka soo baxa markaasi finan iyo nabaro afka kuwaasi oo aan wax xanuun ah ku haynin hadda meel kale uu soo guuray oo xubintii taranka uu ka soo guuray wuxuuna u imanayaa maxay inuu yimaado afka qofka